duleedka degmada Yagoor ee gobolka Sool waxaa si rasmi ah uga bilowday shirweynaha mideeya ee danwadaagta Faarax Warfaa oo ka mid ah beelweynta Jaamacsiyada. Shirkan ayaa ah mid beelaha danwadaagta ahi ee Faarax Warfaa kaga tashanayaan ayahooda gaarka ah, waxaana ka soo qayb galay shirweynaha garaadka guud ee beelweynta Jaamacsiyada Garaad Jaamac Garaad Ismaaciil, Uqaasha beelweynta Jaamacsiyada qurba-joogta danwadaagta Faarax Warfaa, Uqaasha iyo waxgaradka beesha, culimo, haween, dhalinyaro iyo marti sharaf aad u tiro badan. Ugu horeyn waxaa hadalka hibafurka shirweynaha qaatay guddiga qabanqaabada shirweynaha mideeya ee danwadaagta Faarax Warfaa. Aadan Cabdulaahi Shuuriya ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedada uu daaran yahay shirweynahani. Dhankooda waxaa hadalka iska daba maray culimada, Uqaasha, waxgaradka iyo marti sharafta ka soo qayb gashay shirweynaha. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. نبينا وحي يعديه كرمه يسدا وغليستي horta taas bal naga rabaa inaynu arkaanta iyo sidii ayna farano maadno. Qodobka labaad waxa weeye walaalayaal beesha bahwadaagta ee shirkan iyo albarga qabsatay waxaan leenahay marka koowaad Ilaahay subxaanahu wa ta'aala haydin aqbalo alabariga aad qabsateen iyo midnimadiin iyo danihiinna wanaaga ee adduun iyo aakhiraba Allah haydin aqbalo subxaanahu wa ta'aala. midnimadu waa wax aad u qaali ah. midnimada iyo dadku inay midoobaan waa wax ay diintu ku timi ee laga maarmaanka ee lama taabtaanka ah. khilaafkuna waa shar. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala baan inoo cadeeyay wala yasaluna mukhtalifiin ka sulmayaan iskhilaafsanaadaan. haddii aad aragto meel buu dhaqaaqayaa waa khilaafku waa shar weeye. Allahna subxaanahu badan buu inoo tilmaamay inay arintay quraanka noogu sheegay. rasuulkuna wuu inoo cadeeyay salawaatullaahi wasalaamu calayhi wuxuu yidhi muuminka la kal bunyaani weeye. markaasuu faraas xigay rasuulku salawaatullaahi wasalaamu calayhi taas laga rabaa. baryeynaa inuu khayrkeeda iyo xasanaadkeeda uu siiyo oo maxaan ku idhaahdaa igu labanlaabo intii safarana safarkooda ilaahay uu nabadgeliyo baydkoodii iyo baradoodii uu ku geeyo. soo dhowaada xigaalow waannu idin soo dhowaynaynaa. soo dhowaada mar labaad baannu idinku soo dhowaynaynaa. ilaahayna khayr haydin siiyo. golahanina waa golaha madasha danwadaagta Faarax Warfaa. ilaahay waxaannu ka baryaynaa inaad oo uu ducadiisana inoogu soo gebagabayn doono garaadka beesha Garaad Jaamac Garaad Ismaaciil, Uqaasha beesha ee ka soo qayb gashayna waannu soo dhowaynaynaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan shirka waan salaamayaa. ugu horeeyo garaadka beesha Garaad Jaamac Garaad Ismaaciil, Uqaasha, odayaasha kale, dhalinyarada, hablaha iyo dhammaan tulweynaha maanta ka soo qayb galay xafladan ee madasha ku sugan banaga gudba masalaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan marka hore jeclahay inaan idinka mahad celiyo dhammaan intiina waqtiga u soo hurtay shirkan inay ka soo qayb galaan maanta. waan ogahay in meelo fogfog laga yimid, dana badan loo soo dayacay, in shirka kan aanu beesha ugu baaqnay aad naga aqbashaan casuumadihii iyo martiqaadkii aanu idiin fidinnay oo aad ka soo qayb gashaan. jasaakumullah khayr baanu idin leenahay. intaa markaan ka gudbo waxaan anigu jeclahay marka hore maadaama aan qurba joog tahay inaan xoogaa mahadnaqa aan horta marka hore idiin soo gudbiyo intaan mahadnaqa gaadhin salaan aan idinka sido anigoo ka wakiila qurba joogta beelaha danwadaagta Faarax Warfaa oo hambalyo iyo bogaadin iyo taageero buuxda shirkan u soo diraysa, iyagoo kaalin weyn oo mug weyn ka qaatay abaabulka tala dhiibashada iyo qabsoomidda shirka kan la'aantood uusan dhaceen. aad iyo aad baan iyagan ugu mahad celinaynaa. waxaan kaloo aynan la ilaawi karin qolqol joogta magacaas la yiraahdo baan u maleynayaa dal joogteed waa kelmadaha cusub ee hadda soo baxay. dadka gudaha, hablaha, haweenka, odayaasha, guddida abaabulka oo iyaguna runtii kaalin weyn
inaynu maanta madashan isugu nimaadno bilicdaa leh oo quruxdaa leh waqti badan u huray iyagana ilaahay waxaan ugu weydiinaya inuu miisaanka xasanaadka u saaro intii xooggooda iyo caqligooda iyo hawshan ka qaybgalkeeda waqtiga gelisay intaa markaan ka gudbo waxay la tahay salaantii iyo mahadnaqii intaa way ku eg tahay waxaa la isweydiinayaa war beeshatani maxaa tolow shirka kan maanta keenay maxaa laga shirayaa waxay soo gaadhay marihii hore yuguuriya meelaha la joogay beeshatani waxaa la yidhi mageed buu amse biijka hoostiisay fadhiisan jireen markaas halkaasay waxooda iyo arrimahooda ku dhammaysan jireen tii uun baannu ballaadhno waxaannu idhi tolweynuhuna ha yimaadeenoo meel tolka qaada inoo sameeya oo aynu meel weynoo ina qaaddo inoo sallaxa tolkuna inoogu duceeyo taasaa keentay in shirka la qabanqaabiyo waxaa kaloo la isweydiinayaa tolow shirka kan maxaa ulajeeddadiisu tahay maxaa laga shirayaa maxaa jira shirka kani waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo oo ay kulligiin wada ogaataan shirka kani waa shirbeeleed beeshaas waxay ka tashanaysaa danahooda iyaga wanaagga dhexdooda ta u gaarkaa wixii u gaara wixii jira wax weynaba ma jiraane in lagu dhammaysto tolweynaha laftiisa waxaannu ku rajo weynahay in shirkani uu noqon doono mideeyihii koowaad laakiin mideeye labaad oo tolweynahoo dhan beelaha kale jifiyaha kalena ka soo qayb galaan inaynu qabsanuu noqdo kii wada mideeya baannu biidnillaahi rajaynaynaa waxaannu ka sii rajaynaynaa inuu mideeye saddexaad dhaco oo beeshii maxamed siyaade walaalaheennana u yeedhno oo gogoshiina ugu yimaadaan oo isna halkaa wixii jira ku dhammayno saddexdaasiba inay isu keen raacaan ayaannu ilaahay ka baryaynaa biidnillaahi shirka kani wax siyaasad ah waa ka madax bannaanye waxaan rajaynayaa waxaa annaga sharaf noo ah oo aannu aad iyo aad ugu qancaynaa oo waxaasoo dhan iyo safarkaa dheer aannu soo maray kaga qancaynaa shirkaasoo midho dhala oo guulaysta oo qodobo aynu ku meelmarno inooga soo baxaan biidnillaahi waana ka soo bixi doonaan dadkaan u mahadnaqayaa iyagoo isugu jiraan mudane iyo marti iyo marooyinba waxaase ugu horreeya insha allahu tacaala haddii ilahay ka dhigo garaadkeenna jaamac garaad ismaaciil ducaale oo halka kan isagu dadkiiba uga soo horreeyey oo isagu dadkii halkan ku hoostigareeyey oo ku qaabiloo ku soo dhowaynayey garaad aad iyo aad baan kugu mahadnaqayaa insha allahu tacaala haddii ilahay ka dhigo waana halkaagii aad lahayd insha allahu tacaala shirkuna waa shirkaagii adigaa qabanaya gogashanna adigaa dhigay dadka kalena adiga marti ku yihiin waxaan doonaya inaan u mahadnaqo cuqaashii beesha jaamac siyaad oo meesha ku dhan iyagana waxaan leeyahay jazaakumullaahu khayr aad iyo aad baan idiin salaamayaa shirka ujeeddadiisii iyo qaybihiisii kala duwanaa waxaa inooga warramay khayr allaha siiye aadan cabdilaahi shuuriye iyo inuu noqon doono dhowr shir oo kala dambeeya oo dhowr heer oo kala sarreeya mari doona shirkan dawadaagta faarax warfaa dadka wixii aan aqoon dawadaagta faarax warfaa waxaa laga jeedaa caafi faarax iyo diiriye faarax iyo nuur faarax oo isku beel ah dhammaanteen beel quraynu nahay jaamac siyaad baynu wada nahay laakiin marka dee habeenka la joogo intaasaa magaca gaarka la baxday oo u kulmiyaa waana la wada garanaya waan filaya insha allahu tacaala hadalkayga anigu waxaan ku korrinayaa keliya waxaa weeye shirkan waa shir jaamac siyaad dan jaamac siyaad baa lagu hayaa qof jaamac siyaada lagama laha waa u gudboonnahay shirka aynu insha allahu tacaala haddii ilahay ka dhigo cuqaashii baa fadhida garaadkii baa fadhiya nin garboodkii baa fadhiya culimmadii beeshuna waa fadhidaa jazaahumullahu khayr say u dhammaayeenba insha allahu tacaala haddii ilahay ka dhigo markaa sidaasi waxay ka dhigaysaa shirkii shir jaamac siyaad oo loo dhan yahay oo loo gudboon yahay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي باب مهدله خالق سبحانه وتعالى إن أبورتي إنو نعميي إن كلميي إدرين كان هالكا مانتا يسوكو كيانا يسكو وضا مدبينو نهاي سيبنو لنهاي جامع سياد كالكا كسو حاضري إن أيام مهدله إساقا أيام ممهد علينا إن إلهي باب مهدله سبحانه وتعالى
waxaan aad iyo aad muxuu ahaayey ugu mahad celinayaa ummadda meesha isugu timi ee ka soo qayb gashay munaasabaddan baaqo ah haddii ay baxugminayo muxuu ahaayey ilaahay subxaanahu wa tacaalaa xaggiisa laga aqbalay ee ka timi gurmadkana dadka ilaahay u diray ay muxuu ahaayey muxuu ahaayey ay ugu gurmadeen aynu ku guuleeyo danta aad leedihiinna ilaahay haynin fududeey ilaahay baanu saa ka baryaynaa danta jaamac siyaad ee layskugu imaan doonana ilaahay iyadana haynagu guuleeyo sida aynu rabno ilaahay haynoogu asturo idinkana waxaanu leenahay ilaahay garabkiinna ha galo ducooyinkaa la ducaynaya allah haynaga aqbalo ama halka la leeyahay baha faarax iyo baha warfaa iyagana salaan gaaraan u sii jeedinayaa oo kalgacaltooyo ilaahayna waxaynu ka baryaynaa sida loogu talagalay inay u dhacdo sidaasoo miidhanna kuwa ka dambeeyana sidaasoo kale ay noqdaan maanta waxaa weeye adduunka raq waliba waa raggeeda baa la yidhi reer waliba maanta waa waxa uu dalkiisa iyo dadkiisa ka qabtaa ayaa xil ka saaran yahay waayo markaad taada ka soo baxdo ayaad cid kale gargaar u fiidsaa oo danahaaga aad ka soo baxdo marka waxaan leedahay hadal badani maanta halka ma yaallo sidaa maanta xafladdan loo soo qalqaaliyey ee loo fadhiyo ha lagu wada daydo sidaa aan wada yeelno sidaa ayaa faa'iido ku jirta mustaqballe jiritaankeenna dambena u roon wanaagsan iyo allabariga iyo sidan looga shaqeeyo dhammaantiin aad iyo aad baannu idiin salaamannaa waadna ku mahadsan tihiin sidaaad uga shaqayseen iyo sida loo qabtay boqolkiiba boqol waa soo dhowaynaynaa waan idiin hambalyaynaynaa marka labaad waxaan u malaynayaa maanta waxaa la yidhi waa duco iyo haddii ilaahay kuu roon yahay iyo furitaankii weeyi marka hore waxaan leeyahay ducada tayda waa sii horumarsanayaae ilaahay dhammaantiin iyo dhammaanteenba halkaa waxaa ka soo wax qayrle ilaahay inuu naga soo saaray saasaynu ilahay ka baryaannaa waa aqbalo waxaanu leeyahay maanta waa dhacaasaa dadku wax badan bu haddii ilaahay dunuunucayay maanta ilaahay baa isu keenay saacadduna waa saacad rijaabaan u malaynayaa waxaan filayaa inay maanta jaamac siyaadoo dhammina ay ku dayan doonaan inta kalena ku dayanayso dariiq fiican baad furteen dhammaantiin aad iyo aad baannu idiin soo dhowaynaynaa ugu dambayn garaadka guud ee beesha jaamac siyaad garaad jaamac garaad ismaaciil ayaa ka hadlay faa'iidooyinka ay bulsho u leeyihiin isku duubnida iyo aayaka tashiga isagoo ku ammaanay bahwadaagta faarax warfaa sida ay u muujiyeen isku duubnida culimaa'udiinka ningarboodka guurtida dhallinyarada saxaafadda haweenkeenna sharafta badan iyo qurbajoogta halkan ka hadashay ee beloweynta waxaa weeye jaamac siyaad dhammaan shacabweynaha reer Yagoori iyo inta deegaanka ka timi oo dhan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanka bacdi ilaahay baa mahad iska leh alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxaynu joognaa degmadii Yagoori waxaynu maanta halkan farxad weyn ah in aan ka daahfuro ama ka furo ama ku duceeyo beelaweynta waxaa weeye beel ka mida jaamac siyaad ee bahwadeegta faarax warfaa jaamac oo sida waxaa weeye aadan cabdulaahi shuuriyana uu sheegay saddexdaa qaybood ee bahwadaagta ah ee waxaa weeye nuur faarax iyo diiriye faarax iyo caafi faarax inaannu maanta halkan ugu ducayno oo halkan waxaa weeye aannu ku furno shirkan oo runtii wax badan xambaarsan dhammaantiin waxaan idin leeyahay mar saddexaad iyo mar afraadba soo dhowaada waxaana mar kale idinku salaamayaa qalbi furan iyo niyad furan iyo waxaa weeye tolliimo ayaan idinku salaamayaa run ahaantii
xafladani waa xaflo qiimo badan xambaarsan waa tashi waxa weeye waa lafogur waxa weeye waa midnimo waxa weeye waa horumar run ahaantii bahwadaagtan faarax warfaa jaamac waxa weeye cid waliba sumad bay leedahay waa reeraha u talin jiray wey ee mar kastoo ay taladu adkaato ka saari jiray oo meel fiican ku furi jiray wey aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in shirkan beeshu faarax warfaa bahwadaagta faarax warfaa inuu nagu soo horeeyo oo uu beelihii kale ee waxa weeye jaamac siyaadu ka soo horeeyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waddaa noo muuqata iftiin baa noo muuqda raggii talin jiray baa talinaya inta kalena taladooday qaadanaysaa insha allahu tacaala aad iyo aad baan idiin soo dhowaynaynaa aad iyo aadna waa ugu faraxsanahay waxa weeye gudoomiye aadan cabdullaahi shuuriye wuxuu sheegay cabdiqaadirna uu uga dambeeyey in 3 marxaladood uu shirkani mari doono waxaan idinkula dardaarmayaa intaan labada marxaladood kale jaamac siyaad iyo siyaad maxamuud aan loo gudbin in aad haddaad bahwadaagtihiin midnimadu qiimay leedahay sharaf bay leedahay hadalkeennu waa dambayn doonaa inaad reerka meel wanaagsan raxmaad baa ilaahayna siiyey xilli fiican oo ku soo beeganee aad waxa weeye ilaahay calooshiinana burcad isu mariyo tala guud oo reerkoo dhanna hurmud baad u ahaan jirteen aad ku maamushaan idinkuna aad isku maamushaan aad noo soo saartaan una duceeyey cabdifataax maxamed cabdi hol media laascaanood